calaykum. Dadka badanaa marka ay soo wajahdo duruuf adag, laba midkood ayay sameeyaan: inaynan isdhiibin oo nolosha ka rajo dhigin, iyo inay isdhiibaan noloshana ka rajo go'aan. Qofka raba inuu riyadiisu u rumowdo waa qofka marnaba aanan isdhiibin, hortiisana fiiriya. Guulaystayaashu halgal dheer waxay uga jiraan inay hadafkooda iyo riyadooda ka rumeeyaan. Maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagin qisada guusha ee Nack. Waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 1982 dalka Australia, tuulo ka tirsan. Wuxuu ku dhashay xanuun naadir ah oo marmar ku dhaca bini'aadamka. Xanuunkaasoo sababa qofku inuu ku soo dhalanayo gacmo iyo addimo la'aan. Markiisii ugu horreysay uu dhashay waa Nack hooyadii way diiday inay qabato wiilkeeda markay la yaabtay abuurka Nack, waxayna in muddo uu ku jiray cusbitaalka, waxaana lagu xanaaneynayay cusbitaalka carruurta. Waxay ku qanceen labada waalid ee Nack, aabihii iyo hooyadii, inay qaataan wiilkooda abuurka la yaab kale leh ee curyaannimada. Nack uma suurtagelin sharciyada dalkiisa inuu ku biiro waxbarasho. In muddo kadib ayaa waxaa loo ogolaaday inuu iskuulka dhigan karo. Markii uu ku biiray waxbarashadii iskoolka, waxa uu cadaadis kala kulmay ardadii iskoolka cajiib, taasoo sababtay inuu niyad jabo. Waa Nack heer wuxuu gaaray inuu isdilo markii uu jiray da'da 10 jirka. wuxuu isweydiiyey su'aashaasoo ah: see ayaad uga bixi kartaa dhibaatadan uu soo wajahday? Hamigiisu ma ahayn mid hooseeya, wuxuuna jeclaa inuu ku noolaado nolol wanaagsan, isla markaa uu yeesho awood uu kaga gudbi karo dhibaatadan haleeshay si uu uga guul gaadho. Inkasta uunan lahayn wax awood ah, misna kama fikiri jirin waxa uunan haysan. Waxaana uu lahaa 2 gacmood oo aad u dhumuc yar, waxaana ay ku hogaamiyeen nolol wanaagsan. Waxa uu bartay sida loo isticmaalo kombiyuutarka, waxaana uu halkii minute ku qori karaa waa Nack 40 xaraf. Cajiib. Sidoo kale wuxuu bartay awoodna u yeeshay inuu kubadda tenniska tuuro. Waxa kale oo uu bartay sida loo cadaydo iyo sida loo shanlaysto iyo sida taleefanka looga jawaabo iyo qaabka loo dabaasho. Haddaynu fiirino dhanka waxbarashada waa Nack wuxuu waxbarashada ka gaaray kana qaatay 2 baccalaureate, midna wuxuu ku diyaariyey xisaabaadka iyo ganacsiga, midna wuxuu ku diyaariyey ganacsiga. Nack riyadiisa wuu ka rumeeyey, waxa uuna noqday dhiirigeliye weyn. Waxa uu ku sodcaalay adduunka oo dhan daafihiisa, isaga oo la hadlaya 3 milyan oo qof ku kala nool 44 waddan. Haddaba qisadan waxaa ku korodhsatay hoos nugula wadaag. daawade, waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Assalaamu calaykum.